kulanti wacan daawada mar kale madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo go'aan culus ka soo saaray si adagna u difaacay kitaabka Quraanka Kariimka kadib markii shakhsi u shaqeynayay sirdoonka Ukraine uu ku gubay gudaha dalka Ruushka kitaabka Quraanka Kariimka. waxyaabaha la yaab kale hogaamiyaasha Afrika ay kala kulmeen gudaha Ukraine markii ay tageen fariinta madaxweyne Zelensky uu dhiibay hogaamiyaasha Afrika iyo dalalka reer galbeedka oo isuristaag ku sameeyay hogaamiyaasha Afrika kadib markii ilaalada madaxweynaha Koonfur Afrika loo diiday oo lagu go'doomiyay dalka Poland. dowladda Ruushka oo markii ugu horeysay shaaca ka qaaday in gantaalaha nuclear-ka la geeyay dalka Belarus. macluumaadyada ka daahsoon ee la xiriira qodobada aynu soo sheegnay ayaan ku eegayaa barnaamijkeena falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha amniga, balse marka hore fadlan ka mid noqo saaxiibada ku xiran bartayda Facebook lana wadaag barnaamijka saaxiibada. aynu ku bilownay 4 madaxweyne oo Afrikaan ah iyo 3 wakiil oo ka socda dalalka Afrika ayaa gaaray dalka Ukraine si ay u dhexdhexaadiyaan Ruushka iyo Ukraine kuwa oo kulan la qaatay madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky, waxaana qaarkood ay booqdeen deegaanka Bucha oo ah meelaha sida aadka loogu dagaalamay oo ay ka dhaceen xasuuqyada bini'aadanimo sida la sheegay. laakiin inta aysan madaxweynayaasha Afrika aysan gaarin dalka Ukraine, waxaa dalka Poland gaar ahaan Elaborka Warsaw lagu xayiray ilaalada madaxweynaha Koonfur Afrika oo ay gaaraysay 100 askar iyo 20 wariye oo ka socday warbaahinta Koonfur Afrika. dowladda Poland waxay in ka badan 20 saacadood ku xayirtay ilaalada madaxweynaha Koonfur Afrika Ramaphosa ka hor inta uusan u duulin dalka Poland. madaxweynaha Koonfur Afrika iyo wafdiga uu hogaaminay ayaana ka degay dalka Poland xilli dambe kuwa halka ka qaatay tareen kuna tagay caasimadda Kiev ee dalka Ukraine. mas'uuliyiinta Koonfur Afrika waxa ay ku eedeeyeen Poland in ay isuristaag ku sameysay qorshaha nabadda midowga Afrika, sidoo kalena ay qalqal gelisay nafta madaxweynaha Koonfur Afrika iyo hogaamiyaasha Afrikaanka intaba. Poland waxay ka mid tahay isbahaysiga gaashaanbuurta NATO, waxaana dalkaasi yaala gantaalaha difaaca iyo qalabka raadaarka, waxaana taageero militari ay siisaa dalka Ukraine ee dagaalka kula jira Ruushka. kooxaha ka faalooda siyaasadda iyo amniga gobolka waxay arrintan ku macneeyeen in dalalka reer galbeedku ay diidan yihiin nabadda ay wadaan dalka Koonfur Afrika iyo guud ahaan qaaradda Afrika. sababta madaxweynaha Koonfur Afrika ilaaladiisa loo bartilmaameedsaday ayaana lagu sheegay in Koonfur Afrika ay ka tirsan tahay ururka dhaqaalaha ee ay ku midaysan yihiin Shiinaha, Brazil, Ruushka iyo Hindiya, waxaana la diidan yahay in ururkaasi uu saameyn ku yeesho qorshaha nabadda Ukraine iyo Ruushka, waxaana dalalka reer galbeedku ay hore u diideen soo jeedintii nabadda dowladda Shiinaha. si kastaba ha ahaatee go'aanka dowladda Poland ay ku xayirtay ilaalada madaxweynaha Koonfur Afrika iyo wariyaasha ka socda ayaa muujinaya in dalalka reer galbeedku aysan ogolayn nabad Ukraine iyo Ruushka la dhex dhigo, waxaana muujinaysa in qorshaha nabadda ee midowga Afrika ee Ruushka Ukraine uusan guuleysan doonin. hogaamiyaasha Afrika markii ay gaareen Ukraine waxa ay sheegeen in ay xushmeynayaan go'aanka iyo madax bannaanida Ukraine, waxaana ay sheegeen in Ruushka sidoo kale ay ka rajeynayaan in aqbali doono go'aanka hogaamiyaasha Afrika. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky oo shir jira idla qabtay hogaamiyaasha Afrikaanka ayaana ka codsaday hogaamiyaasha Afrikaanka in Ruushka ay gaarsiiyaan gaar ahaan Vladimir Putin in uu sii daayo hogaamiyaasha siyaasadda u xiran ee ka soo jeeda jasiiradlamooda Crimea, sidoo kale in Ruushka uu ogolaado gobolka jasiiradlamooda Crimea uu Ukraine uu dib ugu celiyo ka oo sanadkii 2014 Ukraine kala wareegay. waxaana madaxweynaha Ukraine uu soo jeediyay in Ruushku dhammaan uu ka baxo gobolada Ukraine uu kala wareegay ee bariga iyo midka Crimea intaba. dhanka kale madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa xaqiijiyay in Moscow ay marka hore geysay hubka nuclear-ka wadanka Belarus, isagoo xusay in reer galbeedka aysan u horseedin karin guuldarro istiraatiiji ah Ruushkuna uu adeegsan doono gantaalaha nuclear-ka haddii uu dareemo qalqal iyo madax bannaanidiisa lagu soo xadgudbo. madaxyadii ugu horeeyay ee nuclear-ka ayaa la geeyay dalka Belarus, laakiin kaliya marka hore waxaan geynay qaybta hore, waxaanse si buuxda u qaabayn doonaa shaqada dhammaadka sanadka, ayaa Vladimir Putin ku yiri war-saxaafadeed laga sii daayay telefishinka dowladda ee RT. waxaan haysanaa madaxyada nuclear-ka oo ka tiro badan kuwa reer galbeedka, haddii aan dareeno qalqal waan adeegsan doonaa, laakiin ma noqon doono dalka ugu horeeya adeegsada, ayaa uu ku yiri Vladimir Putin war-saxaafadeedka laga sii daayay telefishinka dowladda. isagoo ka hadlayay fagaarayaasha dhaqaalaha Ruushka ee magaalada St Petersburg Jimcihii, Putin waxa uu ku nuuxnuuxsaday in uusan u arag wax baahi ah in Ruushku uu hadda adeegsado hubka nuclear-ka, laakiin uu isku difaaci doono haddii uu qalqal dareemo.
tallaabadan uu qaaday ee ah in uu hubka nuclear-ka ee ridada gaaban geeyo Belarus kaasoo loo isticmaali karo goobta dagaalka waxa uu uga dan lahaa in uu digniin ugu diro reer galbeedka oo taageero military siina Ukraine ayaa uu ku yiri hogaamiyaha Ruushku. aqalka cad ee Mareykanka ayaa cambaariyay hadalka Vladimir Putin isagoo sheegay in Mareykanku uusan wax isbedel ah ku sameyn doonin mowqifkiisa nuclear-ka isagoo ka jawaabayay hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Vladimir Putin waxa kale oo reer galbeedka uga digay in diyaaradaha dagaalka F-16 ee Mareykanku uu farsameeyay la siiyay Ukraine uu sidoo kale burburin doono sida uu u burburiyay taangiyadii reer galbeedka ee Harmacad gaar ahaan kuwii Jarmalka. sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga dowladda Ruushka ayaa muuqaal kooban oo barteeda Telegramka ku baahisay waxa ay ku sheegtay in ciidanka cirka Ruushka ay gantaalaha ridada fog ku duqeeyeen xarunta dhexe ee laga go'aamiyo amarada dagaalka Ukraine ee ay lahaayeen militariga sirdoonka militariga Ukraine ee loo yaqaano GUR waxaana ay sheegeen in arrintaasi ay jawaab u ahayd weerar lagu qaaday oo loo adeegsaday diyaaradaha duuliye la'aanta gudaha dalka Ruushka. si kastaba ha ahaatee dagaalka Ruushka iyo Ukraine u dhaxeeya ayaa iminka maraya 16 bilood oo xiriir ah waxaana dhowr jeer guuldareystay wada hadallo wadamada caalamka qaarkood ay soo qabanqaabiyeen kaasoo midowga Afrika iminka ay wadaan una aan muuqan mid guuleysanaya. waan filayaa inaad wax badan ka fahamteen qodobkaasi bal iminkana aynu eegno madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo difaacaya kitaabka Quraanka Kariimka. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in cid kasta oo lagu helo in ay gubtay Quraanka Kariimka ay mutaysan doonto ciqaab adag laguna wareejin doono maxkamadaha federaalka Ruushka gaar ahaan kuwa ku yaala gobolka muslimiintu ay ku badan yihiin ee Chechnya si ay u wajahaan garsoorka Islaamka. Putin iyo wasiirkiisa cadaaladda waxay sheegeen in qofka gubay kitaabka Quraanka xukunkiisa uu ku dhameysan doono gobolka muslimiintu ay ku badan yihiin ee Chechnya maadaama diintooda loo gafay. Vladimir Putin ayaana warkan ka sheegay xilli uu kulan la qaadanayay saraakiisha militariga saxafiyiinta militariga ee taageersan Vladimir Putin iyo howlgalkiisa ayaana baraha Telegramka ku faafiyay. hadalka Vladimir Putin ayaa daba socday kadib markii Nikita Shurafel oo la sheegay inuu u shaqeynayay sirdoonka Ukraine uu gubay kitaabka Quraanka Kariimka bishii hore. muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada ayaana carab badan ka dhaliyay dalkaasi Ruushka gaar ahaan jamhuuriyadda Chechnya oo muslimiin badan ay ku nool yihiin halkaasi oo kumanaan mudaharaadayaal ah oo looga soo horjeedo falka Shurafel uu ku kacay ay ka dhaceen halkaasi. sida laga soo xigtay warbaahinta Moscow Times qareenada u doodaya Shurafel ayaa sheegay in ay ka soo horjeedaan go'aanka loogu wareejinayo kiiska Shurafel baarayaasha Chechnya maadaama ay ku xukumi karaan dil toogasho. guddiga baarista Ruushka ayaana ku andacoonaya in eedeysanaha uu qirtay in lacag uu ka qaatay hay'adaha sirdoonka militariga Ukraine si qalqal looga dhexbeero Ruushka iyo Chechnya. si kastaba ha ahaatee dowladda Ruushka ee hogaamiya Vladimir Putin ayaan ogolayn in lagu xadgudbo diimaha gaar ahaan kitaabka Quraanka Kariimka waxaana ay gudaha dalka Ruushka ka mamnuuca in kitaabka la gubo iyo sidoo kale mashruuca reer galbeedku ay hogaamiyaan ee qowmoloodka. horaantii sanadkan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaana aad u dhaleeceeyay kitaabka Quraanka barakaysan ee lagu gubay dalka Sweden ka oo looga gol lahaa oo lagu xumeynayay dowladda Turkiga ee hogaamiyo madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan. si kastaba ha ahaatee eedeysanahan oo aan weli maxkamadda la soo hor istaajin ayaa laga dhursugayaa in loo gudbiyo maxkamad ku taala gobolka Islaamku uu ku badan yahay ee Chechnya. waan filayaa inaad wax badan ka fahamteen intaas ayaan kusoo gabagabaynaa barnaamijkeennii falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha amniga.